guud ahaanba warka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa munaasabadda boqolguurada ee ka soo wareegtay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. imise ayay ahaayeen tirada askarta dagaalkaasi ka qayb gashay, imise madfaca ayaase la riday intii dagaalku socday, qaab noocee ah buuse ku dhammaaday dagaalkaasi. madaxda iyo hogaamiyayaasha 70 waddan oo caalamka ah ayaa axadii maanta waxa ay magaalada Paris kaga qayb galeen xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. waana munaasabadda boqolguurada ee ku beegan maalintii la saxeexay heshiiskii xabad joojinta ee markii dambe lagu dhameeyay dagaalkii koowaad ee dunida sanadkii 1918. waana kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku doonayo inuu kaga faa'iideysto sidii loo hagaajin lahaa xiriirka caalamiga ah. madaxda kulanka ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madax kale oo ka kala socota 70 waddan oo caalamka. waana kulanka ay ammaankiisa ilaalinayaan in ka badan 10,000 oo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Faransiiska. waana munaasabadda lagu xusayo dhammaadkii dagaalkii galaaftay dadkii ka badnaa 18 milyan ee ruux. waana markii labaad ee ay magaalada Paris hal mar wada qaabisho madax iyo hogaamiyaal tirada intaa leeg ah ee sida u badan, iyadoo sanadkii 2015 ay magaalada Paris taasi ahaan u tageen 70 hogaamiyaal wadana oo la qaybsanayay Faransiiska khasaarihii ka dhashay weerar xilliga lagu qaaday hodheel lagu iibiyo cuntada degdega ah oo gaar ahaan ay dadka Yuhuudiga ka adeegan jireen. munaasabadan maanta iyo caawa socota waxay saameyn ku yeeshay roobab ka da'ayay magaalada Paris, iyadoo ciidamada qaarkoodna ay ciyaarsiis military ku marayeen meesha xafladda weyn ka dhacayso. madaxweyne Macron ayaa khudbad u jeediyay waxa uu ku xusay sida loogu baahan yahay in dalalka caalamku ay u hoggaansamaan qawaaniinta caalamiga, waana xilli ay dalalka waaweyn sida Mareykanka oo kale ay haatan ka baxayaan oo dib uga guranayaan heshiisyada caalamiga qaarkood. dhanka magaalada London ayaa iyana munaasabad kooban madaxweynaha Jarmalka iyo madaxda Ingiriisku waxay ubax u wada dhigeen taalo lagu xasuusto dagaalweynihii koowaad, iyadoo boqoradda Elizabeth II oo haatan iyada lafteedu 92 jir ahi ay ubax dhigaasi ka daawanaysay meel u dhawalka. 11 bishii November 1918 ayay ahayd maalintii uu dhammaaday dagaalweynihii koowaad ee dunida uu geystay waxyeello ay adkeyd in laga soo kabto. waana dagaalkii diibta, darxumada iyo silca ku reebay basharka aadamaha, iyadoo gaar ahaan qaaradda Yurub aanay ka baxsanin masiibadii dagaalkaasi dhaliyay. dabeetana 20 sano ka bacdi uu soo baxay Adolf Hitler. gawaadhidii ay la socdeen saraakiishii wadahadallada u qaabilsanaa dalkii Jarmalka ee isdhiibay ayaa 6 bishii November 1918 waxay ka soo tallaabeen xuduudda Belgiumka, waxaana ay la kulmeen saraakiishii ka socotay dhanka xulafada. waxayna ahayd maalin weli dhawaaqii rasaasta laga maqlayay furimaha dagaalka qaarkood, laakiin dagaalka oo socday muddo 4 sannadoodii waxa uu ahaa mid u dhowaa inuu istaago. madaxii wafdiga Jarmalka ee wadahadallada nabadda u qaabilsanaa Matthias Erzsberger iyo Marshal Ferdinand oo horkacayay wafdigii xulafada ayaa heshiiska xabad joojineed ee maanta boqolguuradiisa la xusayo waxay ku saxeexeen gudaha tareen yaalay deegaanka kaymuhu ku daboolan yihiin ee 90 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Paris. dhowr bilood ka bacdina waxaa si rasmi ah loo wada saxeexay heshiiska nabadeed ee dagaalkaasi lagu gabagabeeyay. taariikhyahanadu waxay rumaysan yihiin in muddadii uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu in la riday 850 milyan oo madfac, iyadoo dalalkii dagaalamayay ay qorteen oo safafka ciidamada ku soo dareen ilaa 58 milyan oo askari, kuwaas oo 10 milyan oo ka mid ah lagu dilay dagaalkii socday, 21 milyan oo kalena lagu dhaawacay. waana qiyaasta ka dhigaysay in maalintiiba ay dhimanayeen 6,000 oo askari.